degmada Xafuun mid ka mid ah deegaanada dhulka Soomaalida loogu yeero lama gaaraan ku yaala cirifka bari ee Soomaaliya hadda wuxuu ka gudbayaa mid ka mid ah caqabadaha nololeed ee saameynta caafimaad ku lahaa degmadu waxay dhibaato weyn kala kulmaysay helitaanka biyo nadiif oo macaan kadib markii laga hirgeliyay mashiinka biyaha badda sifeeya oo ka dhigaya kuwa la cabi karo deegaanku wuxuu helay biyo ku filan biyo hore waa xaraar biyaha waa biyo safaysan oo la sifeeyay oo safaysan oo ku faraxnay annaga ciyaalka iyaga ummadda magaalada joogta alxamdulillah wixii keenay iyo wixii ilaahay jazaa'iisa meel khayr Allah ka badiyo mashiinka ayaa sifeynaya biyaha badda ee dhanaan iyadoo laga saarayo milixda iyo waxyaabaha kale caafimaadka waxyeeleeya ceel baa wuxuu ka qodan yahay afaafka hore xeebta beeba baa ku xiran waxa ku jira deynimooyin baa ku jira iyo bam baa ku jira bamkaas baa biyaha badda soo riixaya waxa uu keenayaa wuxuu soo marinayaa beebabka kadibna containerkay soo geliyaanin haamahan bay ku dhacayaanin haamahan markay ku dhacaan waxay u sii gudbayaanin filtarada iyo membrane-iska iga dameeya iyaga kala saaraya biyaha kala shaandheynaya waxay u kala saarayaanin biyo qaraar oo badda iyo dhanaanka iyo biyo macaan oo loo gudbinayo haamaha keydka oo loogu talagalay in magaalada loo sii daayo marka ugu dambeysay biyaha magaalada inta loo sii deyn waa la cabiraa biyaha quality-gooda si joogta maalin kasta marka la cabiro oo cabirka saxda ah la helo waa la sii daayaa biyo la cabirin looma sii daayo magaalada aan quality-gooda la tijaabin biyaha badda wala biyahaas la safeynaya oo biyo macaan la idinka soo saaraya waad cabaysaan ma aaminsaneen bulshada degmada iyo deegaanada ku dhow ee ku dhib qabay helitaanka biyaha ayaa hadda ku sheegi kara in xal loo helay mid ka mid ah caqabadaha saameynta ku lahaa bulshada degmada biyaha waa hore aan dhaqamad baa ku qabnay meel ahaan jireen biyuhu ciriir bay ahaayeen $7 baa naga siin jiray muxuu ahaay $10 baa naga siin jiray markii meel fog laga keeno gaari weyn keeno muxuu ahaay iyo dadaan heli jirin qayb baan heli jirin dadka dad baan lacagta haysan iska dan yaray dad baa heli jiray dad baan shuba jiray markaas waxaan ku leeyahay biyo marka raashin ku korsato aad helayn ba waxay noqonayaan biyo milix ma cuni karayso shaah kuma cabi karayso ilma yar ma siisan karayso shalmaan ninka awood la gadanayo ninka awood la hadaba gadan karanba inuu badiisa cabo khasmeeya marka caqabadaas aanu soo maray alxamdulillah rabbil caalamiin muxuu ahaay mar hadda dhifo ilaahay khayrkiisa keeno xareed iska dado maahay inta kale caqabadaas oo ma jiray dadka degmada ayaa hadda isticmaala biyo nadiif ah iyaga oo isticmaala cabis cunno karin iyo waxyaabaha kale isbedel walba waxay biyaha kana bedeleen biyaha nooc walba loo isticmaalayo iyo biyaha hal wax wali lagu karsanayo waa isbedelaan hadda wax kasta dariya lagu isticmaalaa wax kasta nooc kasta dariska biyo badal lama cabayo biyaha kan la isticmaalaa iyaga badan oo la isticmaalaa raashinka lagu karsadaa sokorta bariiska shaaha ilmaha wax kasta qubeyski wax kasta waa loo isticmaalaa waxba kama duwana shiraabki wax walba lagu qasaa ilmaha cabdeenka garaad aawil mu soo dhasho yaa fataraarisan hore laga siiya male biyashal maana saxa u doonay male saxa iyaga ah ma sha Allah soo biyo waxayaan mawduuca la xiriira biyaha ayaa meel sare ka jooga marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliya warbixinada caafimaadka ayaana sanad walba looga hadlaa biyaha nadiifka ahayn iyo kuwa milixda leh dhibaatada ay gaarsiiyaan dadweynaha halkan iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyada waxaa suurto gashay in biyaha la macaaneeyo iyadoo laga saaray milixa iyo waxyaabaha kale ee caafimaadka saameynaya tani waxa ay hoos u dhigaysaa xaaladda caafimaad ee ka dhalata biyaha dhanaanka mashiinkan waxa deegaanka laga hirgeliyay iyadoo taageero laga helay hay'adda Save the Children dhibaatada meeshan haysatay weyn waa biyo la'aan weeye biyaha ay helaan markuu roob da'ana waa kharaar markuu roob jirinna biyo ma helaan marka biyaha waxa looga saadaamin jiray oo booyada loogu iibin jiray ilaa 80 kilomitir meel jirta taas ayaa waxay nagu dhalisay inaan ka fikirno inay magaaladan hesho biyo macaan waxa dhici jirtay biyaha dhanaan carruurta inay ku xanuunsadaan oo ay shuban badan keenaan intii mataqaanaa ay dhacday aan warshadan sameynay ay noo hirgashay kadib bishii November sanadkii la soo dhaafay laga bilaabo waxa yaraaday ama sii dabartirmaya xanuunadii carruurta ku dhici jiray ee biyaha biyo xumada ay keenaysa oo uu kamid ahaa shubanka iyo nafaqa darrada way nooga qorshaysan tahay haddii ay noo dhaqan gasho oo ay success muxuu ahay lagu guuleysto dhaqangelinta warshadan waxaan u qareemi doonaa wadamada iyo dadyowga deeqda bixiya inaan ka hirgelino mashruuc la mid ah mashruucan meelaha kale ee xeebaha ee Soomaaliya ku yaala ee haysta biyaha badda
iyo dabeesha inaan uga faa'iideyno oon aan ka fulino mashruuc kan oo kale ah wixii maanta ka dambeeya Save Children halkan waxay ku wareejisay dowladda Puntland khaas ahaan wasaaradda tamarta biyaha iyo macdanta mas'uuliyadaasi iyo wakaaladda biyaha mas'uuliyadaasi annakayna saaran tahay wixii ka xumaada iyo horumarkeeda iyo ballaarinteeda wixii ka dambeeya insha Allah waxay xil ka saaran tahay dowladda Puntland dalalka bariga Afrika ayaa ka faa'iideysanaya tiknoolajiyadda biyaha badda lagu sifeynayo iyadoo meeshii ugu horreysay laga hirgeliyay Soomaaliya ay noqotay degmada Xaafuun